mishaarka yar buu eegayaa 30ka bisha waa maalmaha ugu jeceshahay dunida 10ka bishana waa maalmaha ugu necebtahay dunida because bargo baa tahay marka eg nolosheeniba waxaad moodaa inay si ila meerayso u tahay oo marna waxaad riinaysaa mishaarkii marna waxaad ka ordaysaa waqtigii so taa goor ma ka bixi karnaa mar baan ka bixi karnaa markaan ka bixi karnaa wax weeyaan nolosha intaan jooginaa ma badno walaal haddaan ugu badano 60 ma jooginaa marka 60 ka soo doonada waad koraysaa waxbaad baranaysaa oo dugsi baa ku jirtaa oo waad rafaadaysaa amiin 25 wixii ka dambeeyay shaqo diyaar u tahay Soomaa okay so qayb way ka tagto waa koriinkii qaybtan kale shaqada ha ka dhigan qayb ka tagtay iyaduna oo walwal kaaga tagto oo nacayb waxaad qabanaysaa aanad necbayn aanad jeclayn aanad niyad u hayn aas khasbayso dadkeena badankiisu waxay wax u qabtaan qushi bilka iyaga bixini waa ku maararoobayaa waan ku sug ma wax kale oo qabtaad ay haysaa qushi baa nolosheeni oo dhan ay ku dhamaatay waxaad arkay nin weyn oo